الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. walaalayaal maanta oo ay taariikhdu tahay 20kii Jamaadul Aakhir 1441 waafaqsanna 14kii February 2020 maalin Jimco ah. waxaan insha Allah tacaala doobaynaa qasawaadkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam qayb kamida. waliba insha Allah tacaala maanta waxaan doobaynaa qaswadii ugu horeysay rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu duulo ee gaalo ku qaado iyo dagaalkii ugu horeeyay rasuulku gaalo ku qaado. qaswadana waxa la yiraahdaa qaswatul abwaa ama qaswatul wadaan. qaswadii ugu horeysay ee rasuulku uu galay oo gaalo ku qaado waxa la yiraahdaa qaswatul wadaan ama qaswatul abwaa, ma aha qaswatul badr. dulaabul cilmi waxay isku khaldaan, waxay dhahaan qaswada ugu horeysay rasuulku qaaday waa qaswatul badr, maaha, waxa ka horeysay qaswatul abwaa. intaynan qaswada gelin waxaan rabnaa inaan cadeyno laba shay. maxaa la yiraahdaa qaswa, maxaa la yiraahdaa sariya. dagaal kasta oo rasuulku xaadiray oo asxaabta qaybo kamid ah ay raaceen waxa la yiraahdaa qaswa ama duulimaad. dagaal kasta oo rasuulku aanu xaadirin laakiin qaybo kamid ah asxaabta uu dirayna waxa la yiraahdaa siriya ama gaadmo. marka rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu galay 28 qaswo ama 28 dagaal ama 29 dagaal oo isagu uu xaadiray oo naftiisu ay goobjoog ka ahayd. culimada qaar waxay dhahaan 29, qaarna waxay dhahaan 28. qaybta 28 ka tiriya waxay la dhahaan waxa dagaal dhacay 9 kamida, 20 kamida dagaal ma dhicin, laakiin rasuulku maqsadkiisa iyo ujeedadiisii uu soo fushaday. qaybo kamida qaybta taada culimada 28 dagaal buu rasuulku galay, dagaalada rasuulku xaadiray weeyaan. dagaalada rasuulku galay qaybtaada 28 buu galayna 9 kamida dagaal ma dhicin, 9 kamida dagaal baa dhacay, 19 kamidana dagaal ma dhicin. wallahu a'lam. rasuulku laakiin dagaalada uu gaalo ku qaaday ee aanu isagu xaadirin laakiin qaybo kamid ah asxaabta uu diray waxa la yiraahdaa siriya, waana 73 siriyo. marka qaswo iyo siriya farqigaas u dhaxeeya. maanta waxaan rabnaa insha Allah tacaala inaynu ka hadalno qaswadii ugu horeysay ee rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu galay oo la yiraahdo qaswatul abwaa ama qaswatul wadaan. qaswada waxa la yiraahdaa qaswatul wadaan waxayna dhacday sanadkii labaad ee hijriga bishii labaad ee safar 12kii bishii safar bay dhacday. sababta qaswadan dhalisana waxay ahayd tijaarad ama ciir ka imanayay dhinaca Maka oo ay Qurayshta Maka lahaayeen oo soo mariyay mantiqada abwaa in rasuulku sallallahu alayhi wasallam ay iyo asxaabtiisu ay ka hortagaan. meesha mantiqada abwaa ama wadaan waxa degan qolo la yiraahdo Bani Dumra oo min Kinaana ka tirsan, qabiilka Kinaana ka tirsan oo Bani Dumra la yiraahdo ayaa degan. rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu ku baxay isagoo ay la socdaan 200 oo asxaabi oo 200ba ay muhaajiriin yihiin oo aanay ansaari ku jirin. 200na qaybna ay fardo saarnaayeen, qaybna ay lugeynayeen. rasuulka qaswada ugu horeysay uu duulay ee gaalada uu ku duulay wax ansaar ma raacin ama saxaabadii ansaarta radiyallahu anhum may raacin. waxa raacay dhamaan waxay ahaayeen asxaabtii muhaajiriinta radiyallahu anhum. sababtuna waxay ahayd maadaama muhaajiriintu Maka laga soo saaray oo maalkoodii iyo alaabadoodii iyo xoolahoodiiba laga soo saaray oo Qurayshta Maka ay ka soo saareen inay iyagu soo argutaan oo ciirka iyagu ka hortagaan ayay ahayd. rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu ku baxay gaalada laakiin ciirkii lama kulmin. 15 casho ayuu joogay rasuulku sallallahu alayhi wasallam meesha la yiraahdo wadaan. 15 casho joogay oo aanu ama abwa aanu maaragtay ciirkii la kulmin. markuu rasuulku soo baxay waxay ballan wada galeen ama heshiis wada galeen zaciimkii ama hogaamiyihii reer Bani Dumra oo la oran jiray Umaarata ibn Makhshiyin. waxayna kala saxiixdeen heshiis ah inaanay reer Bani Dumra reerka degan abwa aanay rasuulka iyo asxaabtiisa ku soo duulin, gaaladana aanay gacan siin. muslimiintuna aanay iyaga ku duulin. muslimiintuna
aanay ku duulin in laisnabadgeliyo labada qoleba laisnabadgeliyo oo muslimiintuna hadday gargaar weydiistaan oo dhaan reer badan kaaleen noomaa hiiliya maanta ay yeelaan oo muslimiinta u gargaaraan saasaa lagu heshiiyey heshiiskaana way aqbaleen sidaasayna qaswadaasi kusoo dhammaatay wax dagaaloo gaalada iyo rasuulka dhex marina ma jirin ciirkii ay rasuulku maaragtay iyo asxaabtiisa ugu talagaleen inay ka hortagaana wuu dhaafay meesha oo may haleelin arrin yar baa jira oo baraarujin u baahan qaswada laba magac baa lagu magacaabaa qaswatu abwaa ama qaswatu waddaan waa laba meelood oo kala duwan waddaan iyo abwaa waxayna isku jiraan 6 mayl bay isku jiraan waddaan waxay ka fog tahay madiina munawwar waxay ka fog tahay 250 kilomitir dhinaca Makayna xigta marka waddaan waxay ka tirsan tahay mandiqada la yiraahdo abwaa waddaan waxay ka tirsan tahay mandiqada la yiraahdo abwaa sida awgeed ayaa waxa waddaan lagu magacaabo mararka qaar abwaa baa lagu magacaabaa sidaasay ku timi tasmiyaasi maadaama waddaan ay ka tirsan tahay mandiqada ama gobolka hoos timaado yahay abwaa meesha hoos timaado uu yahay sida awgeed waxa lagu magacaabaa abwaa baa lagu magacaabaa abwaana waa meeshii rasuulka hooyadii sallallahu alayhi wasallam ay ku aasnayd waana meeshay kusoo degtay aayadii tayammumka ama gabagabaysiga ka hadlaysay insha Allah ta'ala casharka intaasaynu kusoo koobaynaa waxaynu khaladnayna nafteeda iyo shaydaanka ka ahaadeen ilaahayna dambi dhaaf baynu ka weydiisanaynaa waxaynu saxnayna min Allah ta'ala bay ka ahaatay sallallahu alayhi wasallam